madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo la sheegay inuu ciriiri uu dareemayo kadib markii ay isaga tageen madaxweynayaasha intii u hartay oo dowlad goboleedyada koonfur galbeed iyo sidoo kale ee galmudug ayaa la sheegay inay isaga tageen madaxweyne xasan sheekh maxamuud. madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaase la sheegaa in doorashada ka horba ay danta ku qasbi karto haddii ay suurto gasho inuu sidoo kale doorasho degdega uu qabto iyadoo wakhtigeeda aan la gaarin. madaxweynaha Soomaaliya ayaa la sheegay inuu caqabad cusub ku soo furtay isagoo sidoo kale albaabo cusub isku furay oo la sheegay taas oo sababteedana ay ahayd kadib markii uu sheegay in teennada afisyoon ee dib loogu laaban doono. madaxweynayaasha qoorqoor iyo sidoo kale cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa la sheegaa in madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ay isku fahmi waayeen habka doorashada loo qaban doono. waxaase la sheegaa in madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu doonayay in doorashadaasi ay labadaasi maamul ay u dhacdo qaabka isaga uu doonayo, laakiin waxa ugu maadaama doorashadii waqooyi bari iseet ay u dhacday sidii dadbaneynta doorashooyinka caanka ka ahaa ee Soomaaliya ay iyagu laftirkoodii ay doonayeen madaxweynayaasha galmudug iyo sidoo kale qoorqoor. soo dhawaada daawadayaal, marka hore intaanu u gudagelin faahfaahinta warkan like saara muuqaalka oo share gareeya asxaabtiina sii gaarsiiya. waa mahadsantiin. madaxweynayaasha galmudug iyo sidoo kale ee koonfur galbeed ayaa la sheegaa inay isaga tageen ama sidoo kaleba ay go-aan qalafsan oo ay ka qaateen madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud, taasoo la sheegay inay sidoo kalena ay sababi karto in doorashada soo socota ee 2026 madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku soo laaban waayo kursiga talada ee dalka maadaama dib looga laabtay teendada afisyooni. madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale madaxda dowlad goboleedyada qoorqoor iyo sidoo kale cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa la sheegaa inay isku fahmi waayeen habka loo qaban doono ee doorashooyinka isla markaana loo soo xili doono xildhibaanada oo ay dooran doonaan madaxda dowlad goboleedyada, kuwaasoo la sheegay inay ahaayeen ajandaha ugu muhiimsan sida waxa ay doonayeen. waxaase la sheegaa in labada maamulba ay diyaar u yihiin inay la saftaan mucaaradka ee madasha samata bixinta, sidoo kalena la sheegay inay imika diyaar u yihiin in mucaaradkaasi ay garab buuxa ay ku siiyaan wax alaal waxa ay awoodaan si madaxweynaha xasan sheekh maxamuud ee kursiga talada dalka ee loogu tuuro. madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa hore sidoo kale weji uusan ugu haysanin maamulada Puntland iyo Jubbaland, halka maanta la sheegayo inay ku soo darsoomeen galmudug iyo sidoo kale koonfur galbeed. waxa kaliya hari doono waxay tahay xildhibaanada ka imaan doono maamulka waqooyi bari iyo sidoo kale maamulka hirshabeelle, kuwaasoo ay yihiin labada maamul oo kaliya imika madaxweyne xasan sheekh maxamuud heeso. saadaalinta doorashadana waxaase la sheegaa in madaxweyne xasan sheekh maxamuud dib dambe uusan dalkan madaxweyne uusan ugu noqon doonin, ama barajadiisa ugu weyneed ay ahayd doorashada soo socota inuu dib ugu soo laabto xukunka talada haya ee dowladda federaalka Soomaaliya inuu isagu noqdo. waxaase la sheegaa sidoo kale mucaaradka ayaa sii xoogeysay iyadoo madasha samata bixinta ay qabteen shir degdega iskugu imaadeen ayna ku dhawaaqeen inay u asteeyeen doorashada 15 May 2026 aysan dhaafin. waxayse sheegeen in haddii doorashada ay dhaafto wakhtigii loogu talagalay sidoo kalena iyaguna ay sameyn doonaan wixii hore u dhacay, taasi bedelkeedana ay kula dhaqmi doonaan madaxweynaha imika talada haya xasan sheekh maxamuud. mucaaradka ayaa xasan sheekh maxamuud sidoo kale u dhaartay iyagoo wacd uu ku maray in 15 May doorashada hadday dhaafto in wixii xasan sheekh maxamuud oo madaxweyne farmaajo ku eedeynayay sidoo kale ugu dhaartay inuu villada ugu gali doono si lamid ah iyaguna mucaaradka ay villada lug ay ku gali doonaan, iyagoo sidoo kale ay sitaan ciidamo iyo sidoo kale gawaari iyo beebyaalka ay ku hubeysan yihiin, kuwaasoo ay sheegeen inay halkaasi villada ay si rasmi gudaha u gali doonaan isla markaana halkaasi ay ka eri doonaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud sidii dalkaba sidii hore ugu sameeyayba madaxweyne farmaajo. sidoo kale mucaaradka ayaa sheegay in iyagu weli ay yihiin kuwii farmaajo xilka ka tuuray isla markaana wixii farmaajo ay ka yeeli waayeen madaxweyne xasan sheekh aysan u ogolaan doonin, fursadna aanu u siin doonin madaxweyne xasan sheekh maxamuud in isaga iska jaafaysto ee doorashooyinka iyo wax kasta isagoo uu doonaya isku hagaagsado kadibna kala tuuro howsha. waxayse sheegaa intaasi aysan ahayn howl ka socon karto gudaha dalka Soomaaliya amaba siyaasi Soomaaliya uusan ku riyoon karinba
waxaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu doonayo. falcelin xoogan oo ay ka dhalatay go-aankii ka soo baxay madasha samata bixinta Soomaaliyeed ay ku midaysan yihiin siyaasiyiinta mucaaradka ee ku aadan xaaladda cakiran ee dalka, iyaga oo dalbaday in la gaaro heshiis siyaasadeed loo dhan yahay isla markaana si degdeg ah loo qabto ee doorashada maamul goboleedyada ee dalka. madasha ayaa sidoo kale ayaa lagu sheegay inaysan aqbali doonin muddaxileed dhaafsiisan doorashada madaxweynaha Soomaaliya ee waqtiga loo aseeyay ee 15 May 2026 si hubanti la-aan ee siyaasadda loogu badbaadiyo ee dalka, iyo sidoo kale in waqtiga yar ee ka harsan muddaxileedka baarlamaanka iyo madaxweynaha laga heshiiyo doorasho la hirgelin karo loona dhan yahay, sidoo kalena ka fiicnaantay tii 2022 heshiisna lagu yahay ayaa lagu yiri bayaan mucaaradka ka soo saaray shir labadii maalmood ee ugu dambeeyay ee ku yeelatay Muqdisho. sidoo kale waxaa go-aankan taageeray maamul goboleedyada ee Jubbaland iyo Puntland oo iyagana war-saxaafadeed soo saaray, waxayna xoojiyeen baaqa mucaaradka ee ku aadan in la isugu yimaado shir wada tashi ah oo ay sheegeen in sidoo kale lagu badbaadinayo dalka.